السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa hoyga dhiirana English Learning Funnies qaybtiisa YouTube-ka. haddaba luqadda Ingiriisiga ku baro si fudud adoo nagala soconaya barnaamijyada kala duwan aan daily usoo dhigno barteena YouTube-ka sida conversationo, practice, wada sheekaysi, kelmado, tobiyo iyo mawduucyo kale oo Ingiriisiga ku saabsan. haddaba subscribe noo saar haddii aad nagu cusubtay. haddaad hore noogu saarneed qalbiga ogsooni mahadsanid allaha ku sharfo. waa anigoo Cabdisaaq Muuse Axmed Cabdisaaq dhiirane. waayahay sidoo kale waxaad nagala socon kartaa page-kan kule adoo ku qori doona dhiirane English Learning Funnies. marka page-kan waxaan kusoo gudbin doonaa broadcast-yada iyo magaranaysa fiidiyoyada Ingiriisiga anagoo soo turjumi doona Soomaali afkeen hooyo. page-kan wuxuu mandatory furnay sidoo kale anagoo soo turjumi doona afkeen hooyo. haddaba follow noo soo dheh si aad u hesho xogag badan oo ku saabsan luqadda Ingiriisiga qaybaha kala duwan loo barto. inshallah maanta waxaynu qaadan doonaa vocabulary about fornication, yacni kelmado ku saabsan mawduucii hore aynu ka hadalnay ee ahaa sinada. yacni casharkii ka horeeyay wuxuu ahaa topic about fornication, waxa mawduuc ku saabsan sinada. sidoo kale mawduuca waxa ku jiray kelmadahaynu maanta aan dhigan doono 30 erey ayaan filayaa inay ahaayeen kuwa yaro kakan sidoo kale yara adag. sidaa laajigeed ayaan u doorbiday inaan Soomaaligoodii ku soo micneeyo si casharkii loo fahmo. waayahay kelmadda koobaad since maadaama. kelmadda labaad commerce bilaabid. commerce waxa loo isticmaalaa waxa shay aad bilaabayso. tusaale ahaan I would like to commerce my speech in the name of Allah, the most compassionate. sidaan hore usoo qaadanay si kalena waa oran kartaa I commerce first my speech, waxaan marka hore ku bilaabayaa hadalkayga. waayo kelmadda saddexaad fornication waa zino. kelmadda afraad hack isoo qaabil. yani be attention kaaga isoo sii yani isoo qaabil, si fiican isoo qaabil oo i dhegeyso weeyaan. kelmadda shanaad forbidden xaaraantimeyn. kelmadda lixaad various badan. kelmadda toddobaad slander aflagaado. kelmadda sideedaad backbiting xan. kelmadda sagaalaad contrary liddi ku ah, yani waa wax opposite shay ku ah ayaa la yidhahdaa contrary, liddi ku ah. kelmadda tobnaad conferent wajihid. kelmadda 11aad doctrine caqiido. kelmadda 12aad capacious baaxad ballaadhan. kelmadda 13aad calamity masiibo. kelmadda 14aad deplete yarayn. kelmadda 15aad auspicious barwaaqo. kelmadda 16aad illegal intercourse galmo sharci daro ah. kelmadda 17aad poverty faqri. kelmadda 18aad sickness xanuun. kelmadda 19aad contagious disease xanuunada la isqaasiyo. kelmadda 20aad stiff adag. kelmadda 21aad recovery ka kabasho.
recovery shay aad ka kabanayso yacni aad routine aad samaynayso dib u celin aad samaynayso shay kugu dhacay ayaad kasoo kabanaysaa waayo kelmadda 22aad depress murugo depress murugo depress murugo kelmadda 23aad exterminate haligid ama xasuuqid exterminate haligid ama xasuuqid exterminate haligid ama xasuuqid tusaale ahaan Palestinian people have exterminated the bombs has occurred yesterday dadka Palestine waxa lagu xasuuqay bombadii ku dhacday shalay yani exterminate waa haligid ama xasuuqid kelmadda 24aad banish ciqaabid banish ciqaabid banish ciqaabid banish ciqaabid kelmadda 25aad custom caado custom caado custom caado kelmadda 26aad murder dil murder dilka ama dil murder waa dil kelmadda 27aad since dembiyo hadda esta laga jiro since waa dembi laakiin since waa dembiyo kelmadda 28aad contrition toobad keenid contrition toobad keenid contrition toobad keenid kelmadda 29aad retain celin retain celid retain celid retain celin retain celin kelmadda 30aad prefer doorbidid prefer doorbidid prefer doorbidid aad ayaad ugu mahadsantiin maanta halka ay nagu joogto aad ayaad u mahadsantiin sida fiican aad noo dhageysanayseen maanta halka ay nagu joogto waxaan rajeynayaa inaad subscribe na soo dhihi doontaan si aynu u gaarno intan in ka badan insha Allah khayr baan nii ogahay sidoo kale waxaan furnay page TikTok kaasoo dhawaan aan bilownay inaan soo gelino broadcast-yada Ingiriisiga sida magransa kuwa motivationka anagoo ku soo turjumayna Soomaali ahaan iyo magransa doodaha kulul ee ka dhex dhaca labada qof ee magransa ajaanibka insha Allah halkaas ayaan ku soo gudbin doontaan insha Allah waxaan rajeynayaa inaan halkaas follow aad naga soo odhan doontaan aad iyo aad baad u mahadsantiin waa aniga Cabdisaaq Muuse Axmed Cabdisaaq Dhiirane